gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa howlgallo dhinaca ammaanka iyo waliba xoojinta adkeynta nabadgelyada iyo sidii loo soo afjari lahaa murana ka taagnaa deegaano ka tirsan gobolka Togdheer ugu kicitimay wafdigan oo qayb ka ahaayeen taliyaha ciidanka asluubta taliyaha saldhigga dhexe ee Burco xogayaha gobolka ayaa ujeedada socdaalkoodaasi ku qotamay oo ku hurgelida iyo soo afjaridda murana ka taagnaa deegaanada Duruqsi iyo Talaabur oo ku wajahna murana gacmo iyo baraago ay dadka deegaankaasi isku haysteen barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye taliyaha asluubta Jaamac Baadi iyo xogayaha gobolku ay goob fagaaraha kala hadleen dadka iyagoo halkaasina ku hoga tusaaleeyay muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu sidoo kalena kaga dhawaaqay qodobo ay ka gaadheen muranadan ma hayna wixii meeshan ka dhacay iyo hadalkii yara jiitamay suu inooga soo afjarmo oo de waxoogaa abuu laga yaabaa inuu hadal isku celcelin keenay suu inooga afjaro waa in wax la gaadhaa horta wixii aanu gaadhnay waa idin sheegaynaa waxaanu idinku boorinayaanu idin leenahay aynu tixgelino qodobo go'aanamadaynu gaadhno ciddii ka soo horjeedsatana aynu wada jir gacan uga qabanno ma aha idinka uun meel kastoo reer Somaliland joogaan waxay tala ay moodaan ciddii ka hor timaadayna iska qabtaan weyn dhulkii dhul daaqaynka ahaa ee xoolaha loo ilaalin lahaa ayaa nin walba gudyar ka faarfaaray 12 barkadood baa lagu sheegay oo aan macquul noqon karin in barkada ay noqdaan Talaburna aan ka mid noqon karin oo eegnay waxaanu kula noqonnay barasaabka gobolka Togdheer oo gudidayadii halka mareysay markaa isagu noo soo diray halkan inaanu nimaadno oo arrintaas soo odorosno go'aankii annaga noo muuqday baanu kula noqonnay barasaabka markii aanu kula noqonnayna waxaanu isla garanay deebsi leedin sheegi doono oo halkan go'aankii leedinka akhriyi doono go'aanka guddiga waxay toos u gaadhay qodobada hoos u socda kow in lixda baraagood ee hadalku ka taagnaa ee dhaafay soonihii xadiisna la fasaxo lana ganaaxo calaa barkad 5 milyan oo Somaliland shilin ah in heerka tuulada iyo guddidiisu ka digdoonaadaan wixii dambe ee khilaaf keeni kara ee hawsha ku saabsan in 14 baraagood ee qodaalkooda hore loo joojiyay waxay ahaan doonaan sidii hore loo joojiyay ciddii ku ka timaada wixii wax ka baxsanna waxa laga qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan qodobka saddexaad in la ilaaliyo nabadgelyada wada noolaanshaha iskana fogeeyaan wax allaale wixii khalkhal keeni kara Cabsaaq Faarax Cabdilaahi telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Burco.